madaxweynihii sida xukunka loogu tuuray ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo ciidankiisa weli dibad joog ay yihiin isla markaana duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay ku sugan yihiin ayaa war-saxaafadeed dheer ka soo saaray hadallo maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta qabsaday kuwaas oo sheegayay in wada hadallo ay u socdaan maamulka cusub ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxaan kula wadaagi doonaa war-saxaafadeedka ka soo baxay garabka Laftagreen ee lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee madaxweynihii koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen waxa ku qornaa sidoo kale jawaabta uu ka bixiyay hadallada maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta sida weyn u qabsaday soo dhow muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibo wahagaaga war-saxaafadeed markaasi ka soo baxay afayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen isla markaana uu ku saxiixnaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee sharciga ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen laguna baahiyay bogga rasmiga ah ee Laftagreen ayaa waxa gabi ahaanba lagu beeniyay in ciidamada garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo hoggaankoodaba ay wada hadallo kula jiraan dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Aadan Madoobe war-saxaafadeedka ayaa waxaa markaasi lagu sheegay inuu ka soo baxay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo waxaana lagu yiri gabi ahaanba wararka maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada la isla dhaxmarayay isla markaana sheegayay in wada hadallo ay u socdaan garabka Laftagreen iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Aadan Madoobe halkaasi laga dhisay ay yihiin kuwa been abuur ah oo sal iyo raad aan lahayn isla markaana ay yihiin warar baraha bulshada oo kaliya markaasi ay dad dana gaar ah leh ay isla dhaxmarayeen waxa uu sheegay in ciidanka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ahaa kuwa u taagan sugidda amniga weli ay gudanayaan waajibaadkooda sugidda amniga ilaa ay markaasi ka xaqiijinayaan amniga guud ahaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo waxaana uu sheegay war-saxaafadeedka Laftagreen lagu daawacay lagu baahiyay in garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo ciidanka booliiska gaarka ah ay weli ku howlan yihiin sugidda amniga isla markaana ay diyaar u yihiin in amniga guud ahaan magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaadaba ay xaqiijiyaan sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa waxa loogu baaqay guud ahaan bulshada magaalada Baydhabo iyo guud ahaan bulshada koonfur galbeedba inay ka digtoonaadaan wararka been abuurta ah ee aan sal iyo raadka lahayn ee baraha bulshada lagu baahinayo waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay garabka Laftagreen in madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen uu yahay hogaamiye u taagan xaqiijinta amniga iyo xasiloonida iyo sidoo kale si ambaqaadida horumarka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ciidanka daacad u ah garabka Laftagreen ayaa u muuqda in maalmihii ugu dambeeyay ay si aad u dardargeliyeen howlaha markaasi xaqiijinta ammaanka sida lagu sheegay isla markaana ay weli diyaar u yihiin si wadida inay xaqiijiyaan amniga kana hortagaan falalka amni darrada ah ee ka imaanaya maleeshiyaadka Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Baydhabo uu geeyay iyo sidoo kale tacadiyada ay dadka shacabka ku hayaan war-saxaafadeedkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay si weyn warbaahinta ay u qabsadeen warar sheegaya in garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ee ku sugan duleedka Baydhabo iyo hogaamiyahoodaba ay qaateen dariiq wada hadal ah isla markaana dadaal nabadeed oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida xal waarana looga gaarayo ciidamada ku sugan duleedka Baydhabo ay socdeen laakiin Laftagreen ayaa maanta war-saxaafadeed dheer oo uu soo saaray ku beeniyay dhammaan sheegashooyinkaasi iyadoo ay u muuqato in Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed la sheegay in loo doortay Aadan Madoobe ay wajahayaan caqabad kaga imaanaysa ciidamada duleedka Baydhabo ku sugan ee garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen taas oo tan iyo markii madaxweyne Xasan iyo tiimkiisa Baydhabo ay la wareegeen ay u leeyihiin xal waara oo ay kaga hortagaan xaaladaha soo noqnoqday ee Laftagreen ka imaanaya